Maka root ama geedka loo yaqaano maka root wuxuu faa'iidooyin iyo manaaficaad fiican u leeyahay dhanka iyo taranka sexual reproductive system. Maka root waa geed ka baxo Latin America, dabcan waa miro kuusan haddii jeer waxaa laga beertaa wadanka loo yaqaano Peru, laakiin baaritaano badan la sameeyey iyo cilmi baaris badan lagu sameeyey maka root waxaa la ogaaday si isku mid ah ragga iyo dumarka in faa'iidooyin badan uu leeyahay dhanka iyo tarankooda, xubnaha taranka, guud ahaan dhacaamada ay soo daayaan, qaababka ay u shaqeeyaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa anigoo ah Dr. Maxamed Liibaan Maxamed. mowduucan waxaan ku dul istaagaynaa faa'iidooyinka, manaaficaadka, waxtarka uu leeyahay geedka cilmi baaris badan lagu sameeyey maka root. balse inta aanan u gudagelin mowduuciga, inta igu cusub iyo intii hore inta iga hilmaamtay, waxaan si guud oo sharaf leh idinkaga codsanaa in like-ta, follow-ga, subscribe-ka YouTube channelkayga iyo Facebook page-kayga in la saaro. sidoo kale wixii su'aal iyo talo iyo aragti waxaad iga soo weydiin kartaa addresskayga adigoo aad ka heli kartid YouTube description-ka iyo Facebook page-kayga. maka root ama geedka loo yaqaano ama miraha loo yaqaano maka root waxaa la ogaaday warbixino cilmi baaris badan laga sameeyey inta ugu badan inuu ka qayb qaato habdhiska taranka qofka baniaadanka si iskugu mid ah ragga iyo dumarka. maka root waxaa inta ugu badan uu qabtaa isbedel inuu ku sameeyo dhanka iyo taranka ragga ama dumarka. waxyaabaha ugu badan haddii jeer maka root uu ka qayb qaato waxaa lagu sheegaa in uu sameeyo ama uu aada u xoojiyo broseska loo yaqaano adaptogenic, in jirka baniaadanka hab soo saarkiisa dhacaamaadka iyo shaqayntoodu inay noqdaan kuwo isku dheelitiran. jirkana marka uu baahda dhacaamaadkaas inuu soo daayo ay noqoto levelkii loogu talagalay in mar walba uu helo. sidoo kale in maka root uu xooga uu saaro dhacaamaadka taranka quseeya ragga iyo dumarka, gaar ahaan marka ay noqoto estrogenka, testosteronka iyo kuwa kaloo aada u muhiimsan shaqayntoodu iyo falgaladoodu ay aada ugu muhiim badan tahay. inta ugu badan maka root dhanka iyo ragga marka aan ka fiirino wuxuu aada u xoojiyaa ama aada ugu qayb qaataa soo saarista labada dhacaan loo yaqaano luteinizing hormone iyo follicular stimulating hormone. labadaas dhacaan oo saldhig u ah in jirka baniaadanka uu soo daayo testosteronka. testosteronka marka la soo daayo ama la sameeyana uu ka qayb qaato hab u socodka, shaqaynta, gudbinta shahwaadka. maka root isticmaalkiisa baaritaano badan marka la sameeyey waxaa lagu ogaaday isbedel inuu ku sameeyo sexy drive-ka uu qofku uu leeyahay dhanka iyo raganimada, galmadiisa inay noqoto mid aada u sareysa. sidoo kale shahwaadkiisa concentrationka, nooc ahaan, awood ahaan iyo tayo ahaan in isbedel badan uu ku dhaco. maka root ragga isticmaalo waxaa la ogaaday inuu aada ugu badan yahay labidaha, in hami ay u leeyihiin dhanka iyo sariirta. sidoo kale in lagu arko shahwaad fiican inay leeyihiin. sidoo kale maka root wuxuu kaloo aada ugu fiican yahay dadka shaqooyinka badan ku jiro, maskaxdooda daalan tahay, inay ka yareeyo calaamadaha depressionka iyo in qofka uu soo geliyo firfircooni badan dhanka iyo dareenkiisa. sidoo kale maka root wuxuu kaloo aada u anfacaa athletics-ka marka aan ka hadlayno dhanka iyo dadka ku jiro orodka, banooniga ama jimka, in murqahooda aada u adkeeyo, oxygen badana jirka uu soo daayo. sidoo kale testosteron aada u badan in la gaarsiiyo murqaha, seedaha iyo lafaha. sidoo kale maka root faa'iidada uu leeyahay dhanka iyo ragga waxaa hadii jeer lagu sheegaa in fertility-ga uu xooga uu saaro dhanka iyo taranka, inay noqdaan shahwaadkiisa kuwo bacrimismi kara, gudbi kara, awoodna u leh inay la falgalaan dhanka iyo ovulationka ama ugaxaansidayaasha dhanka iyo dumarka. dhanka iyo dumarka marka aan ka fiirino maka root inta ugu badan wuxuu xooga uu saaraa sexual reproductive systemka, habsocodka shaqaynta xubnaha taranka ee dumarka ay leeyihiin, in dhacaamaadka la soo daynayo ay noqdaan kuwo isku dheelitiran,
sidoo kale marka dhacaamaadka caadada ay imaanayaan aysan noqonin kuwo qaldan, iyo hormoneska dhanka iyo uurka marka ay diyaar garoobayaan inay yihiin kuwo saxan. Marka Ruud haweenka dhinacooda wuxuu xooga uu saaraa in marka hooyada caadada ay ka go'do ama dhacaamaadka dhalmada ay istaagaan, in calaamadaha soo muuqanaya ama waxyaabaha isbedel ee jirka caafimaadka ku imaanaya inay ka yaraayaan, gaar ahaan marka ay dareemayso hot flashes, kuleel uu kaga furan yahay jirka. sidoo kale xubinta taranka xagga hoose inay aada u qalalan tahay, sidoo kale tabar dare badan ee dareemayso ama calciumkeeda jirka uu yaraanayo. Marka Ruud wuxuu awood u leeyahay inuu kor u soo qaado physical ahaan hooyada ama gabadha markay caado goyso inay noqdaan kuwo had iyo jeer culays aysan ku qabin, calaamado badan oo isbedel badan uusan jirin. Marka Ruud dhanka iyo dumarka sidoo kale wuxuu kaloo ka ilaaliyaa calaamadaha depressionska, walwalka, walbahaarka, iyo in qofka uu noqdo hurdadiisa inay aada ugu yaraato, taasoo ka macna ah in cortisol levelka ama dhacaamaadka cortisolka qaabilsan hormone balansigooda uu aada ugu dadaalayo. anigoo ah Dr. Maxamed Liibaan Maxamed, halkan ayaan ku joojinaynaa mowduuca Marka Ruud. inkastoo Marka Ruud faa'iidooyin badan uu leeyahay, haddii ala idmo waxaan ugu hadli doonaa mowduucyo kale kaasoo had iyo jeer aanu soo bandhigi doono faa'iidooyinka iyo waxtarka uu leeyahay. aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinaa dhageysiga iyo video clipska aan soo geliyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.